بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal ku soo dhawaada warka saacada ee shaqada warkii.com wal jamaa ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kaas oo laga soo saaray qodobo dhowr ah ugu horeynba waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow oo degmadiisa kulanka uu ka soconayay martina loo ahay intii kulanka uu socday waxa galabta sharaf iyo wanaag noo ah inaan ka soo qayb galno xirritaankii kalfadhigii 14aad ee golaha talada maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa oo muddo 7 maalmood ka socday magaalada gobolka Galgaduud degmada Dhuusamareeb dhexdeeda kaas oo runtii go'aamo wax ku ool ah oo la akhri doono lagu gaaray waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan golaha talada iyo gudoonkooda ودبر adeegii ay arrimaha Ahlus Sunnah oo dhan walba laga fiiriyay oo dhabar adeegeen iyo muddadii ay meeshan shirka ku hayeen iyo wixii ay ka soo gaareen oo deegaanka anfacay inta uu uga mahad celinaa sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay afayeenka golaha talada culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaa waxa uu goobta ka aqriyay qodobadii ka soo baxay kulanka intii uu soconayay waxay golaha talada ee maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa ee gobolada dhexe ay go'aamiyeen qodobadan soo socda kow in la sameeyo guddi iyo howlgala dhismihii maamul goboleedka sida ugu dhaqsaha badan guddigaas oo hore loo go'aamiyay ayna dusha kala socon doonaan guddi ka tirsan golaha talada labo in muddadii loo kordhiyay golayaasha maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa muddadaas oo ah sida tan ee golaha talada ee maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa ee gobolada dhexe waxa loo kordhiyay muddo dhan 1 sano b golaha fulinta iyo gudoomiyaha saddexda gole ee maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa ee gobolada dhexe waxa loo kordhiyay muddo dhan 6 bilood muddo kordhintaas oo waafaqsan dastuurka maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa gobolada dhexe Soomaaliya 3 dhamaystirka dib u heshiisiintii laga dhex sameeyay beelaha degan deegaanada maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa ay ka taliyaan 4 xaqiijinta qorshaha u degsan dhaqaalaha maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa ee gobolada dhexe iyo abuuridda ilo dhaqaale oo kale 5 dhamaystirka dhismaha maamulka gobolka Galgaduud sida ugu dhaqsaha badan 6 in dawladda loogu baaqay in ay fuliyaan heshiiskii dhexmaray dawladda iyo maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa gobolada dhexe Soomaaliya baaq nabadeed maamulka culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaa ee gobolada dhexe ee Soomaaliya wuxuu baaq nabadeed u soo jeedinayaa dhammaan beelaha ku dhaqan gobolada dhexe in ay joojiyaan colaadaha iyo gacanka hadalka ka dhex jira kuna dhameystaan wada hadal iyo geed hoosti ugu dambeyn gudoomiyaha golaha talada Ahlus Sunnah wal Jamaa Sheekh Umar Sheekh Cabduqaadir ayaa waxa uu sheegay in culimadiinka Ahlus Sunnah wal Jamaa ay qorsheynayaan howlgal balaaran oo ay ku qaadayaan deegaanada maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab wali ay kaga harsan yihiin gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sidaan u sheegnay horeyba anaga halkan dheer baan hor yaal waxaynu jecelahay oo isu diyaarinaynaa inaynu haddii alla idmo nimanka cadowga ah oo khawaarijta ah oo diin laawayaasha ah oo dalka iyo diinta iyo dadka Soomaaliyeed cadaabka ku noqday inaanu wax ka qabanno oo aan dalka iyo diinta ka horeyno oo aan dhulka ka sifayno insha Allah ta'ala taas waa go'aankanaga ilaahayna waa tala saaranaynaa waxaana rabnaa dhawaan haddii alla idmo inaanu isku diyaarino arrinta hawlgalkeeda